daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysanayno Professor Cabdiraxmaan Aadan Ibbi oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda midnimada qaran ee Soomaaliya oo booqasho kooban ku jooga wadanka Netherlands. Professor kusoo dhawaad TV-ga caalamiga ee Universal. waxaa warbixin kooban aad naga siisaa booqashada aad ku joogto wadanka Netherlands. محمد قرطك السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله دمان داودياش شرفت له رتي مالو بي جوان الصومالية إنك داونا تي في اليونيفرسال إذن نوان السلام يا وحليكم السلام يا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii safarkaygu wuxuu ahaa safar aad u kooban oo aan marka hore ku talagelin laakiin rabni marka hore aan usoo dirno heer level safiir marka dambana ay weydiisteen dowladda Denmark oo iyo dowladda hadda joogto Netherlands labadu ay yiraahdeen waxaan u baahanahay level wasiir oo gaar ahaan wasiirka qaabilsan arrimaha xeebaha Soomaaliya iyo kalluumaysiga iyo kheyraadka badda runtii waxaan la yaabay maxamadka shirkan hore uga dhacay dalka Ingiriiska London waxaan loo qayb galay safiirkayga dalka u fadhiya Nairobi waxaan America iyo la taliyaha safaaradda wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda Dr. Hussein shirkan maadaama qoraalka laga rabay inaan gudbino oo level wasiir ah waxaan go'aansanay marka in aan aniga soo baxo oo prime minister uu amar ku bixiyay Cabdiraxmaan Weyn adigu aad shirkaas shirka waxaan Denmark markaan nimid waxaan qaabilay wasiirka arrimaha dibadda dalka Denmark sabeel runtii saacad iyo 10 daqiiqo ayuu nasiyay in xafiiskiisa ku wada kulano ayaga airport laga soo qaaday marka hore level runtii waxay nagu qaabileen dowladnimo oo protocol heer sare kadibna waxaan hadana qaabilay wasiirka horumarinta iyo iskaashiga caalamiga oo gabar ah runtii oo qof aad u wanaagsan oo aad u jecel Afrika aad uga xanuunsanaysa dhibaatada Soomaaliya gaartay ayana muddo ilaa 40 daqiiqo ayaan xafiiskeeda wada fadhinay maalinta ku xigtay runtii waxaa intaas garab fadhiyay oo garab socday agaasimayaasha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda iskaashiga oo runtii muhiimadda ay u leedahay Soomaaliya markan waxaan u sheegay yiri Soomaaliya waa xilliga ku habboon marka taato in la caawiyo oo la gaarsiiyo levelada adduunyada kala mid noqon karto waxyaabo badan oo dhibaatada Soomaaliya ka jirta in lagu wato burcad badeedka Soomaaliya wuxuu noqday syndrome runtii wuxuu noqday wax iska phenomena oo qof walba maanta ka hadlo ka sheekeeyo haddana sidii wax looga qaban lahaa aan lagu mataqaana dhaqaaqayn laakiin waxaan keenay hadda barnaamij استراتيجية سلاسل runtii oo base wanaagsan leh oo dawladdu mataqaasi aad uga fikirtay loogana hortagi karo mataqaana burcadbeedka Soomaaliya loogana hortagi karo mataqaana dhibaatada maanta ka jira xeebaha Soomaaliya markii wasiirada arkeen runtii aad ay ugu riyaaqeen shirkan waa shir weyn oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala 92 dawladood ay maadaama runtii wasiirka u qaabilsan arrimaha mataqaana dawladda Masar runtii wuxuu ahaa dawladda aad noo taageeray dawladda China aad bay noo taageertay dawladda Talyaaniga aad bay noo taageertay dawladda Kenya runtii barnaamijkan aad bay uga hadashay dhibaatada ka jirta xeebaha Soomaaliya waxa laga qabanayna waxay tiri ganacsiga aan Afrika la leedahay adduunka intiisa kale ay aad u baaba'ayo waxaan wax looga qaban karaa way tiri oo qura in dawladda Soomaaliya la taageero la xoojiyo ciidankeeda mataqaana ilaalada bada waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed u sheego runtii wax lagu farxaa in marka soo baxayo madaxweynaha iyo wasaaraha Umar Cabdirashiid Al Sharmaarke iyo Sheekh mataqaana madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Abdul labadaba igu geesigeliyay yiraahdeen waa u sheegi kartaa runtii madaxda qaabilaysid in dawladda Soomaaliyeed ay go'aansatay in la magacaabo madaxa ilaalinta xeebaha Soomaaliya oo runtii khabiira in professor in aqoon badan u leh arrimaha mataqaana badaha runtii kala tirsan jiray ciidamada badda Soomaaliyeed runtii arinta ayada marka u sheegana aad ay ugu farxeen madaxda dalka Denmark iyo Netherlands dawladaha runtii ka soo qayb galay arinta aad ay weydiinayeen yiraahdeen Soomaaliya waxay la sameeysan laadahay ciidamada ilaalada xeebaha badda oo laakiin aan ahayn heer navy ama sirjitadii badda oo kaleeto inaan ana u naqaanay mariniska ayagu ma jecla xoolaha kuma bixinayaan laakiin waxay jecel yihiin kuwan ilaaliya xeebaha oo arrimaha sibilka ku mashquul madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo prime minister Umar Cabdirashiid waxay ii sheegeen in aan u fasaxnahay inaan u sheego shirkan international community isku imaanayso
in dowladda ka go-an tahay in magacaabayso madaxa ilaalinta xeebaha Soomaaliya iyo la dagaalanka arrimaha burcadda marka taas runtii aad bay ugu wada riyaaqeen weli wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ii sheegay dalka Denmark in ay tahay barnaamijkii ugu horreeyey oo runtii adduunyada ka sugay Soomaaliya inay tahay arrinta ayada waan ku faraxsanahay waana gaarsiin karnaa buu yiri Soomaa ah markaan ku yiraahdo ma gaarsiin karnaa Soomaa dalka kale Europeanka in dowladda Soomaaliya tilaabaas qaaday aniga dowladdeedii waxaan ballan qaadayaa inaan kaalmada ugu horeyso ee hay'adaas la dhisay ee la dagaalanka arrimaha burcadbadeedka iyo illegal fishingka iyo mataqaanaa sunaynta Soomaaliya دور شريفة أنا كقادرنا تحضر لنا وأنا صعنا بالبرنامج كأسجع وأنا بلغ هذا أنا متقن قعوين كجس بس لو زيرت كنا هرمانات إسكاش عالمي وعيتوا برنامج كنت أدلى وسوي صوماليا وأنا بلغ هذا أنا طلابة كوهبون كقادنا سيدو كوزارة الرباح دي بدأ ذلك النذرلاند قال هني كان قابل سنة معها متقن إذا بدنا بديل على أنت iyo siyaasadda runtii reer boqol kana ka tirsan dalkan isla sanadna la fadhiyay iyo gabadha badqaanaysimaha guud ee arrimaha Afrika iyo horumarinta qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda waxay noo sheegeen runtii in barnaamij lagu farxo uu yahay barnaamijkan runtii waxay yiraahdeen dowladani inay tahay dowlad horu socda doonaysana dadkeeda dalkeeda inay xun qabato rabto waxaa laga garanayaa mashaariicda iyo ka qaybgalka iyo feejignaanta aad u leedihiin shirarka internationalka waxayna runtii ii sheegeen waxay yiraahdeen wafdigii ka qaybgalay oo legal advisorkii oo madaxa gaasmaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Netherlands inuu yiri runtii wafdiga Soomaaliya soo dirtay wuxuu ahaa wafdi runtii naga qanciyay baahida aan uga qabnay information badan oo rabnay inaan ka ogaano xaaladda burcadda ee Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya sidii ay rabto inay u hawlgasho arrinta ayada runtii sidoo kale waxay yiri wasiirka ka socday mataqaana dowladda Masar sidoo kale waxay yiri kan China ka socday dowladda Kenya runtii ay si xayir la'aan uba tiri haddana Soomaaliya wax laga qaban arrinteeda lama taakulenin waxna mataqaana looga kaalmeynin wax ka soconaya haba yaraatee burcadda maaha burcadda waxa laga dagaalami karaa waa gudaha dalka meesha ka imaanaya waa kras ruuska dhibaatada jirtana waa in sida uu wasiirka sheegay bay tiri runtii marka anaga hadal qabsanaysay kalluumaysatada Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee loo diiday inay kalluumaystaan ee loo diiday inay mataqaanaa kheyraadkooda badda la soo baxaan ee shabaagtoodii laga jaray ee doomahoodii la jijibiyey ee biyo kulul lagu shubay mataqaanaa ee kalluumaysanay laga caagiyay inay mataqaanaa haba yaraatee u dhawaadaan meel 12 nautical mile ee anaga xataa sharciga u leenay kalluumaysatada hoose inay gaari karaan ee haddana ay gaari karin ee maraakiibta ajnabiga ee xoog badan ee weli gaar ahaan Europeanka inay yimaadaan haddana si sharci darro u kalluumaystaan haddana sun ku shubaan badaha iyagii isla markaana u diidaan kheyraadkii badda waa runtii caari keenaysa